بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا قضبادا وراركا جالكينا دايني لتيفي قدور كورون waxaana ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr oo daafuray nidaam lagu xoojinayo maamulka maaliyadda Soomaaliya Ali Cabdullaahi Cusuble oo taageeray dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ku taageeray cunaqabatayntii la saaray Jubbaland xisbiga himilo qaran oo uu hogaamiyo madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka shiray dacwadii ay gudbiyeen maamulka degmada Buulaburti oo xilkii laga qaaday gudoomiye Cumar Finish waa gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ballanqaad u sameeyay shacabka magaalada Muqdisho shir laga yeeshay la dagaalanka al-shabaab Ali Maxamed Geedi ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya oo ku dhawaaqay xisbi mucaarada wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya oo wada qorshe canshuurta qaadka loogu wareejinayo shirkad gaar loo leeyahay shirkadda Jubba Airways oo dacwad ka furtay Kenya dibna loogu fasaxay shatigii Soomaaliya iyo halka uu fariisanayo maamulka ay dawladda federaalka Soomaaliya u dhisayso Jubbaland iyo qorshaha socda ayaan idiin soo gudbin doonaa xog ku saabsan daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka Daily TV ugu door corona intaan u gudagelin qodobadaasi oo faahfaahsan marka hore waxaan idin xasuusinaynaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambaralka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan halka uu fariisanayo maamulka ay dawladda federaalka Soomaaliya u dhisayso Jubbaland iyo qorshaha cusub Daily TV ayaa 24 September soo gudbisay in askar ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo gaaraya 300 isla markaasna Muqdisho laga qaaday laga dejiyay degmada Baardheer ee gobolka Gado kuwaas oo qayb ka ah ciidamo badan oo dawladda ay ku daadguranayso gobolka Gado waxa warbixintaas ku jiray in ciidamadaasi ay ka qayb yihiin qorshe ay dawladda doonayso in ay guud ahaan ku wada qabsato gobolka Gado kadibna u gudubto Jubbada Dhexe si ay Axmed Madoobe uga soo reebto kaliya dhowr degmo oo ka tirsan Jubbada Hoose go'aankii dawladda ay shalay ugu dhawaaqday habraaca doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa si rasmi ah banaanka u keenay qorshihii dawladda ay bilowday toddobaadyo ka hor ee Daily TV ay shaaca ka qaaday sida aan xogta ku helnay mar kale doorashada dawladda ay qorsheynayso in ay u qabato Jubbaland ayaa lagu soo dhisi doonaa maamul cusub oo dawladda taageersan kaasi oo xaruntiisa ay noqon doonto magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado inta laga xureynayo magaalada Bu'aale oo ah caasimadda rasmiga ee Jubbaland maamulka cusub ayaa noqon doona mid ay aqoonsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena la isku dayi doono in beesha caalamka laga dhaadhiciyo inay aqoonsato maamulkaasi inkastoo aan la hubin in ay taasi dhici doonto go'aankan ayaa waxa si gaar ah u qaatay madaxweynaha Soomaaliya oo ka sukow loolan dawladda federaalka ah iyo kan Jubbaland ay xiisadani ku reexayso loolan u dhaxeeya beesha uu ka soo jeedo iyo beesha Axmed Madoobe oo sanado badan isku haya maamulka Kismaayo qorshaha cusub ee dawladda ayaa ka sii dari doona xaaladda Jubbaland oo laga cabsi qabo inay gaarto heer dhiig badan uu ku daato shirkadda Jubba Airways ayaa dacwad ka furtay Kenya dibna loogu fasaxay shatiga Soomaaliya shirkadda Jubba Airways ayaa dacwad ka furtay maxkamadda sare ee dalka Kenya iyada oo ku dooday in diyaaradii sabtidii ka degtay magaalada Kismaayo ay fasax la'aanteeda isticmaasha ruqsadeeda Jubba Airways ayaa kiiskeeda ku sheegtay in diyaaradan oo ay lahaayeen ganacsato ku duushay ruqsadda Jubba Airways diyaaradda ayaa waxa duuliye lagu magacaabo Alex oo Kenyaan ah oo la rumaysan yahay inay lacag siisay Jubbaland kiiska Jubba Airways ay u gudbisay maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku eedeeyay Alex oo ahaa duuliyihii diyaaradii Kismaayo ka degtay inuu waday diyaaradda oo magaca Jubba Airways ku diiwaan gashan Jubba Airways ayaa dalbatay in Nairobi laga xanibo diyaaradii ku duushay ruqsadeeda talaabo ay qaaday Jubba Airways ayaa timid kadib markii dawladda Soomaaliya ay shalay ku wargelisay in laga laabtay ruqsadii ay uga howlgalaysay Soomaaliya sida aan xogta ku helnay wada hadal dheer oo shalay ilaa xalay u socday Jubba Airways iyo dawladda ayaa mas'uuliyiinta Jubba ku doodeen in aysan ka warhaynin diyaaradii tagtay Kismaayo ee ruqsadeedu lagu kaxeeyay Jubba ayaa codsatay in ruqsadda dib loogu fasaxo isla markaasna ay maanta kiis ka dhana arintan u gudbinayso maxkamadda sare ee Kenya kaasi oo dawladda ay ku qanacday waxayna diyaaradda Jubba maanta duulimaadyo ku kala aaday magaalooyinka Kismaayo iyo Galkacyo diyaaradda Fakari konton oo lambarka diiwaankeedu yahay
5YGXG kana diiwaan gashan dalka Kenya ayaa sida la sheegay ku duuleysay shati ay leedahay shirkadda Juba Airways oo ka mid ah shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya. Diyaaraddaas ayaa jebisay xayiraadii ay dowladda federaalka ku soo rogtay bishii hore magaalada Kismaayo, taas oo ahayd in diyaaradii tegaysa ama ka duuleysa magaaladaasi ay waajib ku tahay in ay soo marto magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale amar kale oo ahaa in 24 saac ka hor ay diyaaraddu soo gudbiso codsigeeda ku aadan duulimaadka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa wada qorshe canshuurta qaadka lagu wareejinayo shirkad gaar loo leeyahay. Sida ay xogta ku heshay Daynila TV, Wasaaradda Maaliyadda iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wado qorshe la doonayo in qaadka iyo canshuurtiisa lagu wareejiyo shirkad gaar loo leeyahay. Shirkadda lagu wareejinayo maamulitaanka soo degista qaadka iyo canshuurtiisa ayaa waxaa lagu magacaabaa Dalada Mira. Dalada Mira waxaa ku jira ganacsato Soomaaliyeed balse ay leeyihiin una badan yihiin kuwa Kenyaan ah, waana shirkadda ka ganacsata qaadka oo ay keento Kenya ama ay ka keento Kenya isla markaana gudaha Soomaaliya u soo daabasho. Wasaaradda Maaliyadda ayaa qorshahan wado, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda shirkadda lagu wareejiyo. Sida aan xogta ku helnay, shirkadda ayaa la siin doonaa saami u dhaxeeya 30 ilaa 40%, waxayna la wareegi doontaa maamulka iyo canshuurta qaadka. Heshiiskan oo hadda marayo meel gabagabo ah ayaa waxaa ka dhalan karto in dalka la soo geliyo qaad aan xisaab lahayn, maadaama la xakameeyay tirada ganacsi ahaan loo keeni karo Soomaaliya. Waxaa sidoo kale fududaan doonta in si fudud loo musuqmaasuqo canshuurta qaadka maadaama lagu wareejiyay canshuurta isla shirkadda qaadka ka ganacsanaysay, taasoo ah heshiis ay ka dhalan karto dhibaato. Heshiiskan ayaa waxaa gadaal ka riixaya mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda, kuwaas oo heshiis kula jiro shirkadda hawshan lagu wareejin rabo, waxaana la sheegay inay ku leeyihiin saami gaaraya ilaa 15%. Dowladda Soomaaliya ayaa lacago badan ka hesho canshuurta qaadka, waxaana maalintii lagu qiyaasaa inay ka soo xarooto 30 ilaa 35 kun oo doolarka Mareykanka. Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqaya xisbi mucaarad ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi, ayaa sheegay in dhawaan uu magaalada Muqdisho kaga dhawaaqi doono xisbi cusub oo weliba mucaarad ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu isaga hogaamin doono xisbigan, isla markaasna uu noqon doono mid mucaarad ku ah dowladda, sida uu hadalka u dhigay. Khudbad uu ka jeediyay munaasabad soo dhaweyn ah oo maanta Muqdisho loogu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Khudbad uu ka jeediyay munaasabad soo dhaweyn ah oo Muqdisho loogu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayuu Cali Geedi ka sheegay inuu dhisay xisbi mucaarad ah oo loo diiwaangeliyay. Waxa uu sheegay in xisbiyada siyaasadda ay sharci yihiin, isla markaasna uu meel mariyay baarlamaanka, isla markaana madaxweynaha dikreeto ku ansixiyay. Waxa uuna xusay in xisbigiisa yahay mid wax dhisaya. Sida uu sheegay Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, waxaa xisbigan cusub magaalada Muqdisho looga dhawaaqi doonaa maalinta Arbacada oo taariikhduna ay ku beegan tahay 9 bisha 10aad ama 9 bisha 10aad. Cali Maxamed Geedi ayaa lagu tiriyaa siyaasiyiinta aadka ugu dhow dowladda federaalka, isagoona dheer jeer difaacay. Sidoo kalena Geedi ayaa lagu xasuustaa weeraro afka ah oo uu ku qaaday siyaasiyiinta ka soo horjeeda siyaasadda Soomaaliya ee dowladda mucaaradka ku ah. Shir laga yeeshay la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shir gudoomiyay kulan bilo ah ee guddiga amniga Jubbaland, kaas oo bishii hal jeer lagu qabto Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen xaaladda amni ee Jubbaland iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, Maxamed Sayid Aadan, ayaa sheegay in maamulka saraakiisha ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo kuwa AMISOM ay kordhiyeen xaqiijinta dhinaca amniga. Waxa uu sheegay in kulanka inta uu socday la isku raacay bilaabidda howlgalka dhan ah Al-Shabaab oo weli ku sugan deegaano badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Gudoomiye Filish ayaa ballanqaad u sameeyay shacabka magaalada Muqdisho, iyada oo maanta roob saameeyay isu socodka dadka iyo gaadiidkuba ka da'ay magaalada Muqdisho. Ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho
Cumar Maxamed Finish waxa uu sheegay in ay wax ka qabanayaan goobaha biyaha fariisadka ah ee ku yaala laamiyada la dhisay ee gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in ay sameynayaan bulaacado biyaha ka qaada laamiyada si ay magaalada u noqoto mid nadiif ah oo shacabka iyo gaadiidkuba isu socodkooda uusan hakad ugu imaanin sida maanta dhacday. Waxaa hadalkiisa uu intaasi ku daray gudoomiyaha in ay dhisayaan dhammaan wadooyinka kala duwan ee soo gala magaalada Muqdisho ee aan weli la dhisin si loo helo laamiyo nadiif ah oo aan burbursaneyn. Kuwa gudaha ayuuna intaasi raaciyay in ay iyaguna ay dhisi doonaan. Maamulka degmada Buuloburti ayaa xilkii laga qaaday. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada Buuloburti ee gobolka Hiiraan iyo duqii degmadaasi. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiir Maxamed Cali Caadle ayaa lagu sheegay in xilkii laga qaaday gudoomiyihii degmada Buuloburti Cabdicasiis Cabdilaahi Cabdi Duurow loo yaqaan iyo duqii degmadaasi Maxamed Fiidow Cawaale. Sidoo kale wareegtadan ayaa waxaa lagu sheegay in xilka gudoomiyaha degmada Buuloburti si ku meel gaar ah loogu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda Liibaan Cabdi Burisow. Sababaha xilka gudoomiyaha looga qaaday ayaa lagu sheegay in degmadaasi laga sameyn rabay golo deegaan isla markaasna ay ka soo horjeesteen in golahaasi deegaanka la sameeyo. Sidoo kale waxaa lagu sheegay kadib markii in la arkay isqabqabsi ka jira degmadaas iyo la tashiyo lala sameeyay madaxda sarsare ee Hirshabelle in ay ku muteysteen in ay xilkooda ku waayaan sida warka qoraalka lagu soo saaray ama dikreetada xilka loogu qaaday ay muujinayso. Xisbiga Himilo Qaran ayaa ka shiray dacwadii ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliya. Golaha dhexe xisbiga Himilo Qaran ayaa yeeshay shir looga hadlayay xaaladda Soomaaliya iyo dardargelinta howlaha xisbiga iyo dacwadii ay dhowaan ka gudbiyeen xukuumadda Soomaaliya. Shirkan oo ahaa mid xasaasi ah oo ay ka qayb ahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyaha xisbiga Xildhibaan Suleymaan Maxamuud Xaashi ayaa inta badan waxaa soo xaadiray xubnaha golaha dhexe ee xisbiga iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ugu jira xisbiga Himilo Qaran. Shirka waxaa gudoominayay gudoomiyaha golaha dhexe Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe Xildhibaan Yuusuf Xuseen Gamaadiid. Dood adag oo laga yeeshay xaaladda dalka, dacwadii xisbiga ay u gudbiyay maxkamadda sare iyo xaaladda wadanka ee cakiran ayaa ugu dambeyn ku soo dhamaaday jawi wanaagsan. Cali Cabdulaahi Cusuble madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in cunaqabateyn la saaro Jubbaland. Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cusuble ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka dowladda iyo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo xayiraadii dhowaan la saaray maamulkaasi. Waxa uu sheegay Cusuble in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwo mar waliba raalli isaga ah isu xoog sheegashada, isla markaasna ay yihiin kuwo isku fiirsada kadibna ay dhacdo in ay mid u qayliyaan. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in dhammaan maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya ayuu ku sheegay in qofba qofka kale uu ku fiirsanayay dhibaatooyinkii loo geystay, isaga oo ku faraxsan yahay in ay maamulada dhadhamiyaan dhibaatooyinka lagu hayo. Cusuble ayaa isaga oo madaxweyne ka ah maamulka Hirshabelle mooshin xilka uga qaaday baarlamaanka maamulkaasi kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo la aaminsan yahay in ay dabada ka riixaysay xukuumadda Soomaaliya. Soomaaliya waa wadan ay dadkiisa raalli isaga yihiin isu xoog sheegashada iyo dulminta, sababtoo ah kama dhiidhiyaan qaladaadka ee way isku eegtaan markaasuu midba maalin cawaada ayuu yidhi. Mac sokor ayay ku tahay Jubbaland, waan ku faraxsanahay tan lagu sameeyay Koonfur Galbeedna ha iska daba wareegto Galmudugga, Hirshabelle ha baqtiso, Puntlandna ha faquuqnaato, eerboorkana ha la iska celiyo, guryahana ha la isugu daato, doorashadana dib ha loo dhigo. Intaba waan ku faraxsanahay, hala wada dhadhamiyo xaraarka uu dulmiga leeyahay. Xaraarka dulmigu wuxuu isu bedelaa macaan markaad aragto kii shalay kugu qoslayay oo maanta cawaadaya. Nin walbo dulmi ka sheeganaya waxaan leeyahay welcome to the club. Albaabada way furan yihiin, dulmigana wuu bilowday ee ma joogsado. Ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaare Kheyre ayaa daahfuray nidaam lagu xoojinayo maamulka maaliyadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta daahfuray isku xirka nidaamka maaliyadda ee Wasaaradda Maaliyadda iyo nidaamka casriga ah ee maamulka lacagaha bangiga dhexe ee dalka.
oo ka qayb qaadanaya daahfurnaanta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo fududeynta wada shaqeynta bahda maaliyadda Soomaaliya. Xasan Cali Kheyre ayaa wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ugu hambalyeeyay nidaamkan cusub oo qayb ka ah tallaabooyinka dhiirigelinayo dadka Soomaaliyeed oo dhan oo qaybta ka qaadanaya horumarka. Ayaa sheegay in wax wanaagsan ay tahay in la soo dhaweeyo wax walba oo xoojinaya ammaanada iyo qarannimada. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku dhiirigeliyay wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha bangiga dhexe in laga sii shaqeeyo sidii nidaamka loogu faafin lahaa dhammaan hay'adaha dawladeed ee dalka, maadaama horumarka uu ku xiran yahay sida loo wada shaqeeyo. Horumarinta hanaanka maaliyadeed ee dalka ayaa qayb ka ah himilooyinka tubta horumarinta dhaqaalaha dalka oo ka mid ah 4 tub qaran ee lagu saleeyay shaqooyinka dawladda, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ee dawladda Soomaaliya. daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen channelkeena Daily TV halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. intaan warkan warkiisa kulmi doono anagoo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.